السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا بدعوة كسو دوادا كنالك إسلامي تكنولوجي sidoo kale kusoo dhawaada muuqaalka saddexaad oo aan kaga hadlanay barnaamijka loo yaqaano CapCut oo ah barnaamij lagu edit gareeyo laguna habeeyo muuqaalada inagoo isticmaalana mobilkeena insha Allah taala muuqaalkan insha Allah taala waxaynu ku baran doonaa qaabka muuqaalka background-ka looga jaro ama background-ka ka dambeeya looga masaxo inagoo isticmaali doona laba tool oo kala ah tool loo yaqaano remove background kaas oo background kasta nooc kasta oo background oo ku daba yaala ka remove gareyn doona ama ka tirtiri doona iyo toolka labaad oo loo yaqaan chroma key kaas oo runtii inta badan tirtira noocyo kamid ah background-da sida kuwa green-ka ama blue-ga iyo kuwa kale oo lamida sida awgeed labada option baynu isticmaali doonaa waana qaabka looga remove gareeyo background-ka muuqaal kasta insha Allah taala waxaan rajeynayaa si fiican u fahanteen kusoo dhawaada muuqaalka اوكي asxaabta qiimaha badan leh waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka loo yaqaano CapCut barnaamijkan horeynu uga soo hadalnay muuqaaladii hore hadaad u baahantahay commentiga ugu horeeya aad ka heli doontaa sidoo kale application-kan oo 100% free ah commentiga ugu horeeya insha Allah taala aad ka heli doontaa sida awgeed marka ugu horeysa halkan calaamada wadarta ayaan tagi doonaa insha Allah taala waxaan ku soo dari doonaa hal muuqaal hal picture aan iraahdo kadib markaynu soo galno picture-ada ama muuqaalada ama gallery-ga aynu soo galno halkan waxa yaala laba option kaas waa markaad muuqaalada dooranayso option kan waa markaad sawirada ku soo darayso marka sawir been hadda ku soo daraynaa insha Allah halka waxaan tagi doonaa marka photos ay ku qoran tahay kadibna saad arkayso waxaan soo dooran doonaa picture kan ayaan soo dooran doonaa ama sawirkan sida awgeed halkaas aynu ku dhufan doonaa kadibna add ayaynu ku dhufan doonaa halkan hoosta add ay ku qoran tahay halkaas ayaynu ku dhufan doonaa okay inta kadib waynu halkaas aynu ku dhufanay kadibna waxay noogu soo darsamay sawir weeyaan hadda ma aha muuqaal sida awgeed sawirkan ayaynu insha Allah taala timeline-kiisa inuu dheerayn doonaa oo aga time-ka uu soconaya hadda waxa weeyaan 3 second oo kaliya sida awgeed hal mar baynu taaban doonaa kadibna halkan aynu qaban doonaa waan jiidi doonaa saas baynu xoogaa u jiidi doonaa okay kadib timeline-kii baynu dheeraynay inta kadib waxaan ku soo dari doonaa laba muuqaal ayaynu ku soo dari doonaa marka muuqaalada aan ku soo dari doono background-ka aynu ka jari doonaa isla markaasna background-ka saxda iyo wuxuu noqon doonaa background-ka halkan ku yaala insha Allah taala haddii aanad fahmin insha Allah taala waad fahmi doontaa inta kadib haddii halkan ay ku select gareysan tahay meel banaan iska taabo kadibna halkan ku dhufo halka ay ku qoran tahay overlay okay halka ayaynu ku dhufan doonaa kadibna halkan aynu add overlay ay ku qoran tahay ku soo dhufan doonaa mar kale okay kadibna waxaynu ku soo darnay mid kamid ah muuqaaladii aynu hore waxaynu ugu soo edit gareyn jirnay muuqaalkaas aynu ku soo darnay muuqaalkan sida ugu muuqata ma laha background khaas ah laakiin waa background uu gidaar ka dambeeyo alaabo kala daba yaalaan waxba ka dambeeya runtii background-ka sida awgeed background-ka noocan ah barnaamijyada masaxa runtii aad bay runtii u kooban yihiin marka barnaamijkan wuxuu kamid yahay barnaamijyada runtii awood u leh nooc kasto background oo ka dambeeya oo masaxo kadib insha Allah taala background-kaas aynu tirtiri doonaa laakiin intaynaan tirtirin muuqaalka aynu soo leegaysiina background-ka muuqaalka hal mar aynu taabano kadibna saas inoo faraheena u riixayna saa faraheena ugu kala riixayna aynu soo dhaweyno inta kadibna meesha aynu muuqaalka soo buuxinaa soo leegaysiino okay muuqaalkii meesha waan soo leegaysiin hadda sida ku muuqata laakiin background-kaas aynu ka saari doonaa background-ka sida looga saaray waxay tahay adigoo runtii muuqaalka taabta ma aha background-ka halkan yaala muuqaalka adigoo hal mar taabta kadib markaad muuqaalka taabato kadibna xaggan u soco meesha ay ku qoran tahay remove background ayaad ku dhufan doontaa okay remove background markaad ku dhufato runtii waqti bay ku qaadataa qofka waxoogaa buu waqti ku yara qaadataa laakiin aniga si dhaqso leh markii uu ka remove kariyay laakiin waa laga yaabaa inuu tiro uu tiriyo runtii uu ka bilaabay ilaa 100% u gaarsiiyo kadibna uu background-ka ay waqti kugu qaadataa macquul laakiin aniga si dhaqso leh ayaa uu iga remove kariyay inta kadib hadaynu balay garayno runtii background-kii caddaa ee ka dambeeyay hadda runtii ama background-kii alaabuhu daba yaaleen ma jiro dad muuqaalkan soo yarayso iyo dad muuqaalkan weynaysaba waa isla mid wax background oo ka dambeeya ma jiro waxa rajeynayaa inaad si fiican u fahanteen waxa daba jooga runtii meeshii geel iyo wixii daba taagtaagnaa ayaa ka dambeeya iyo badii iyo cadceedii soo baxaysay waxaas ka dambeeya waxa weeyaan background aad iyo aad u qurux badan okay background-kiisa laakiin original-ka ahaa ee marka hore magaranaysa ayuu kamarada ku duubtay waynu ka bedelnay qaabka labaad ee runtii background-da loo masaxo waa tiyo la isticmaalayo option-ka loo yaqaan chroma key option-kaas isagana waxa loo isticmaali karaa adigoo runtii halkan mar labaad ku soo noqda halkan ay ku qoran tahay halkan overlay ay ku qoran tahay oo ku soo noqda kadibna ku dhufta halkan ay ku qoran tahay add overlay kadibna ku soo dara muuqaalka aad rabto okay muuqaalkaas aynu hadda ku soo darnay muuqaalkaas waxa weeyaan green screen background weeyaan sida ku muuqata sida awgeed background-ka ka dambeeya waa green ama waxa weeyaan akhtar kolba sida u taqaano
marka backgroundkaasna si qaab khaas ah ayaa looga remove karaya inagoo uga remove kareyn karna sidii hadda aynu uga remove kareyninay laakiin option kale ayaa jira oo runtii muuqaalada noocana ama runtii backgroundada halka color ah tusaale ahaan hadduu buluud salaanayo ama uu yahay guduud khaas uu yahay hal color oo buyuur ah oo alaabo kale aanay ku dhex jirin kii hore alaabo kale ku dhex jiray waxba daba yaalay gadaashiisa wax badan baa yaalay laakiin kan waxba ma daba yaalaan ama gadaashiisa wax kale ma daba yaalaan hal color oo kaliya ayuu leeyahay marka option kani waa nooca ugu fudud ee loogaga remove karaya marka hal mar baad muuqaalka taaban doontaa halkan timeline ka adigoo isticmaalaya marka taabato kadibna xagana u socon doontaa ilaa aad gaadho meel ay ku qoran tahay chroma key waa option kan halkan ka soo baxay option kaas weeyaan chroma key marka aad taabato kadibna halkan waxa iman doonta calaamad circle calaamada circle-ka bartanka waxa ku leedahay dhibic markaas aad riixi doontaa bartanka waxa u dhigi doontaa meel blue ah ayaad dhigi doontaa qofka jirkiisa saari maysid ama meel kamid ah jirkiisa saari maysid background-kiisa taabsiin doontaa kadibna halkan intensive ay ku qoran tahay ayaa taaban doontaa kadib marka aad taabato kadibna halkan ayaad qaban doontaa kadibna waad riixi doontaa sidoo kale imika saas markaan u riixo waxa weeye background-kii hadda waa ornaantii ka dhamaaday ama background-kii saas ayuu kaga dhamaaday kadibna halkan calaamada tigta ayaad ku dhufan doontaa sidoo kale waxaynu arkaynaa muuqaalkaas in qofkaas in ciidda ku dhex jira ayaa la moodaa markii hore aynaan soo leegaysiin meesha sida awgeed hadda waan soo leegaysiinaynaa waxa la moodaa runtii qof ka soo sokeeya ama kamarada ku soo dhow ayaa la moodaa background kale ayuu yeeshay ama background-kii sawirka aynu hore u soo qaadanay ayuu yeeshay marka background-nada qaabkaas runtii inta badan looga jaraa marka faa'iidooyinka ay leeyihiin background-ka oo la jaro waxa kamid ah adiga tusaale ahaan haddii aanad ku qanacsanayn alaabaha ku daba yaala markasta ama gadaashaada yaala waxaad isticmaali kartaa maro ama daah ka dambeeyo green ah ayaad isticmaali kartaa kadibna waad iska kadgarayn doontaa sidoo kale haddii muuqaalku uu kaagaga dhaco sidii kii hore inoo soo aragnay meel adigu aanad jeclayn saas oo kale background-ka uga bedeli kartaa marka faa'iidooyinkaas uu runtii leeyahay waxaan rajaynayaa asxaabta qiimaha badan inaad fahanteen insha Allah taala muuqaalada insha Allah taala wataxana insha Allah taala waan sii wadi doonaa tan intayna ku kulmi doonaa casharkan oo kala lamid ah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.